السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما سحبت من البوجوكتان يسول بينو مقلسان وعكسنا باتان شبكة ست كروبز مقعي وعبي داهر السلام سبتان لبدا اسبوع wax video muuqaala soo magalin channelka taasi waxa sababtay in labada isbuuc oo hadda la soo dhaafay isbuucan isbuucu ku xigaba aan imtixaan aan lahaa jaamacadda isla marxaantaana aan qorsheey ku dirin YouTube-ka si aan meel iskaga saaro imtixaankayga. Hadda video maanta waxa raawo kaliya inaan ka hadlo saddex qodob. qodobka koowaad oo ah in aan bedelay meesha aan wax ku duubay oo aan sameystay background aad u qurux badan background-ka aad u jeedaan ayaan sameystay oo aad u qurux badan aad u keli doontaa insha Allah. background-kaas aad qurux badan ayaa sameystay waxaana igu baxday lacag $90 dhammaan sameyska kumisaatada rinjiga background-ka wax walba oo ku bax halkan $90 kaliya ay iga baxday. qodobka labaad oo rabay inaan ka hadlo waxay tahay labadaas isbuuc oo la soo dhaafay waxaan ku jiray imtixaan isla marxaantaana oo aan rabay inaan meel iska saaro jaamacaddeeda oo aad igu adkeed oo aan awood u yeelan waayay inaan muuqaal sameeyo isla marxaantaana YouTube-ka aan soo galsho. taasi darteed ayaan uga baaqday YouTube-ka oo aan qorsheygaan ugu soo dirin. qodobka saddexaad oo rabay inaan ka hadlo waxay tahay in labada isbuuc hadda la soo dhaafay uu channelkayga helay laba strike oo degdeg ah. strike waxa la ganaax waayo haddii hal strike loo saaro channelkaada features kamid ayaa la xirayaa sida live stream-ka kale ayaa laga xirayaa. hadduu laba strike ama laba ganaax kugu dhacana waxa laga xiri doonaa laba isbuuc inaad muuqaal soo gudubeyso channelkaada oo waxba soo dhigi karin ayaa kugu dhici doona. hadduu saddex strike ku saarmo ama saddex ganaax ku saarmana 6 bil ayaa lagu jiri doonaa. sidaa darteed labada isbuuc hadda la soo dhaafay maalmo kamid ah ayaa waxa ii soo dhacday emailkay ama gmailkay waxa ugu soo dhacay strike ama video kamid ah video ugu dambeeyay oo aan ka hadlay 6 application oo laga helay Play Store-ka in laga saaro YouTube-ka oo ay ii sheegeen sababtan waxay ahayd inay dhaheen wuxuu ka soo horjeedaa shuruucdeena ayuu ka soo horjeedaa. ma aqaan sababta shuruucda uu soo jeedo laakiin markaan fikray waxaan isdhahay wuxuu ugu soo jeedaa in linkiyada aan soo dhigay video hoostiisa in ay diideen waayo source-ga aan ka keenay source-ga ma ahayn source oo la isku haleyn kara ma ahayn. waxaa ka fiicneed inaad samaysto short linkiyada kuwa sameeya linkiyaa la soo qaadaa shortiyaa la sameynaya xurufaa laga sameynaya oo gaaban samahaantaan dareemi karin wax ku dhex jiro. marka hadda kadib insha Allah sidaas ayaan isticmaali doonaa. sidaa darteed daawadayaal laba strike ayay isaaleen laba isbuuc hadda la soo dhaafayay oo degdeg ah isla marxaantaana laba strike ay ugu sababta aniga inaan channelkay waxba soo geli karin oo waxba soo dhigi karin. ilaa amarkii wuxuu ku hadday xilli qorsheey uu ku jiro YouTube inaan wax soo dhigo oo imtixaan aan isku diyaarinay laba isbuuc imtixaan ayaan lahaa isla marxaantaana halkaas ayuu ku soo aaday alxamdulillah. hadda wuu ii dhamaaday strike-gaas oo ganaaxas waa laga qaaday laba isbuucna wuu ii dhamaaday. haddana video-gan ayaan soo dhigay. strike labaadna wuxuu ugu dhacay video aan YouTube soo geliyay oo aan uga hadlayay sida muuqaal ku jiro YouTube-ka aad ugu soo degi kartid qayb kamid ah 10 daqiiqo video haysta 5 daqiiqo kamid ah qaabka ugu soo degi kartid uga hadlayay asana linkiisa in lagu qabsado oo maleena hadda walaalayaal waxa rabaa inaan idin sheego haddii ay YouTube tahay in aad iska ilaaliso linkiyada soo dhigaysid oo markaa soo dhigay source aan isku haleyn karin Google Play Store soo dhigi kartaa linki website-yo caalami oo la yaqaan soo dhigi kartaa laakiin website-yada loo qono kale ama linkiga meel soo hadda soo dhigin. haddii u baahan tahay kale inaad soo dhigtana kusoo xir Google short link ama any short link kusoo xir si dhow loo arkin ama drive kusoo shub saas soo dhig insha Allah bidna arkin. haddaba daawadayaal oo ku mahadsantiin daawashada dabatay muuqaalkan insha Allah waa soo laabtay cashiraad u xiiso badan iyo muuqaalaad u xiiso badan ayaan soo gudbi doonaa hadda kadib oo imtixaanka uu dhamaado wax walba uu dhamaado insha Allah. haddii san dhibaato dhicin muuqaalo aad u xiiso badan aad heli doontaan. oo ku mahadsantiin mar labaad soo dabatay muuqaalka please haddii aad channel ku cusubta subscribe ku samee sidoo kale like sar muuqaalka waa anigu Cabdi Daar online. bye bye.